محمد أحمد عوكي ودوان شاعي إنه يهي مرشح xildhibaan golaha shacabka ee Soomaaliya ee dhawaan doorashadiisa la qaban doono ayaa xaflad soo dhaweynay taageerahankiisa siyaasadda loogu sameeyay magaalada Qardho waxaana xafladda lagu taageerayay murashaxa soo agaasimay dhalinyarada iyo aqoonyahanka magaalada Qardho xafladda oo si qurux badan loo soo agaasimay waxaa ka soo qayb galay ururada dhalinyarada aqoon-yahano haween iyo mas'uuliyiinta dawladda kamid ah ugu horeyn Ciise Maxamed Muuse oo kamid ah qabanqaabayaashii munaasabadda ayaa ka sheekeeyay taariikhda musharax Cawke waxaana uu Ciise tilmaamay in musharax Maxamed Cawke uu yahay shaqsigii ugu mudnaa ee kursigan isu soo taaga waxaan aad iyo aad idinku mahadcelinaynaa inaad ka soo qayb gasheen xafladan lagu soo dhaweynayo musharax xildhibaan ee aqalka hoose ee dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Axmed Cawke Maxamed Axmed Cawke waa nin rugcada ah waa nin kana soo jeedaanka Puntland gaar ahaan Qardho gurihiisa iyo guriyahooda waxay ku yaalaan magaalada Qardho waa nin wax yaqaan waa nin aqoon-yahana waa nin muddo ku soo shaqeeyay sadan ku soo dhex jiray wuxuu u taagay kursigan wuxuu rabaa inuu wax ka bedelo waxaan rabnaa isbedelka cusub sanadka 2021 aqalka hoose inuu la yimaado qaar ka mid ah dadkii kala duwanaa ee ka soo qayb galay xafladda ayaa tilmaamay in taariikhda Cawke ee laga sheekeeyay aqoonta ay u leeyihiin ay tahay mid uu uga soo bixi karo mas'uuliyadda loolanka ugu jiro sharaf weyn bay noo tahay caawa ka dhalinyaro ahaan iyo ka bulshada Qardho ahaan inaan ka soo qayb galno xafladda sharafta iyo soo dhaweynta loo sameeyo musharaxa xildhibaan aqalka hoose ee dawladda federaalka Soomaaliya kursiga 104 musharaxu waa nin reer Qardho si leeno sheegay waa nin reer Puntland ah waa nin maanta u soo diyaar garoobay inuu dadkiisa iyo deegaankiisa matalo musharax xildhibaan aqalka hoose kursiga 104 aqoon-yahan Maxamed Axmed Cawke oo ah nin ka soo jeeda deegaanadan kursiga deegaanadan baa laga leeyahay deegaanadan inay taageeraan oo garab istaagaaniin waa arin aad iyo aad muhiim u ah mudane Maxamed Axmed Cawke oo sida uu Ustaad Ciise noo sharaxay taariikhdiisa ah nin aynu naqaano oo reer Qardho ah oo deegaan ah waxa weeye qofkii aad taqaano oo baa loo dhiibtaa u shaado Soomaalidu tiraahdo Soomaa waa mudan yahay nin mana xildhibaan Soomaaliyeed baan ka rabnaa xildhibaan beesha mana uu ku meteli karaan ka rabnaa xildhibaan wax qabadkiisa mana loo bogi doonaan ka rabnaa waana yahay sida la sheegay محمد أحمد عوكي مسؤول عدو وحقلا محمد أحمد عوكي مسؤول عدو وحقلا أقويهان موغدا ويو لما هاديا أقويهان موغدا ويو لما هاديا مشرح نماديسا دادكو وريها غيا مشرح نماديسا دادكو وريها غيا مقصود بالويو هولاغا ما مارمي كارو محمد أحمد عوكي oo reer Puntland ah oo ah musharax u taagan xubinta aqalka hoose ee dawladda federaalka ah ee kursiga 104 beesha direed oo sheegay caawa inuu Puntland ka soo jeedo awilna awal horay xogaa yiri waxaan dhiga geynayaa beledweyne waa ku soo dhaweynayna waxaan leenahay ku soo dhawow sharax xildhibaan ee golaha shacabka ee Soomaaliya Maxamed Axmed Cawke oo hadal dheer ka jeediyay xafladda ayaa mahadcelin kadib ayaa ka sheekeeyay hadii loo doorto kursigan iyo qorshihiisa siyaasadda marka waxaan leeyahay ka soo duceyso kursiga hadaad helaysid Qardhana gurigaagii hore ku soo dhaqo kursigan waa kursi Puntland laga leeyahay oo deegaan doorashadiisu tahay tawfiiq waxaan rajeynaynaa insha Allah annagoo kaashaneen reer Puntland kaashaneeno deegaankeena kaashaneena wax walbo in aan gacanaha iswada qabsano qorshahana ka bedelno dadka xuquuqda ka maqan aan u soo xabiibadan cabdi warar warbaahinta SBC magaalada Qardho anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma sameyn karayo warmaahe run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi ma aha maxad mar hore igu sheegi weyday fikir BC
shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibaddiisa joogta ugu bushaaraynaysaa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga loo diruhuna wuxuu ku helayaa saad ama accountkiisa Daarasalaam Bank haddaba si aad u isticmaasho abka BC waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga BC